السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan waxaan salaamayaa dadweynaha Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan. Horta waqtiga kan wuxuu egyahay waqtigii la sheegay oo la yiri ummadda Islaamiyada iyada isxireenaysa iyaga ayaa isxireynaya ayay u egtahay waqtiga kan. awalna wuxuu ka bilaabmay Soomaaliya iminkana Soomaaliya ka bilaabmay meel kasta dagaal ka soconaya ka dhacaya dadka istilayaan wadada Islaameed. qofkii Iiraan nabad baan rabaa waxa la oranayaa waa baqaya waa qof baqaya la oranayaa kii Iiraan nabad baan rabaa anigu dagaal ma rabo. horta waxaan leeyahay ilaahana fidmaynin fidma ninkii wadana oo dagaal isagu doonayaan isaga ay xun tahay isaga ku dhib qaba akhriya dunba nabad ninkii doonayaan isaga wanaagsan tahay. marka waxaan leeyahay ummadda ku degdegsan dagaalka oo dagaal doonaysay ama xoolada aan lahayn haysatay xaq darro ku haysatay ama dhiig Islaameed doonaysay ama guryo reerood haysatay adaa ku dhib qaba baan leeyahay ilaahay ka baqa baan leeyahay islaamka ummadda Islaameed maxay ahaydeen dhiigoodii maalkooda u nabadgeliya baa ilaahay yiri. marka ninkii ku faanayo dhibaato adiga qaba ninkii maxay ahayd xaqiisa la haysto ama gurigiisa la haysto ama dhulkiisa la haystona waxa weeyaan xaq buu leeyahay dhulkiisa inuu soo ceshado. marka ilaahay baa sheegay inaad naftaada iyo maalkaaga difaacatid ninkii inta sameeyana waa nin xaq ku taagan baan markaa waa nin xaq ku taagan in la isdilo mar walba dagaal lagu taagnaadaan faa'iido ma leh. adduunka kan maxay ahayd dhiig galayo xaq darro ku dilay qof Islaameed ama xoolihiisa ku banaysta iyo maalkiisa hadduu waa dhinto oo ka tago halka adduunka muxuu ka faa'iidaya aan khasaare ahayn. waxaan leeyahay nabad ha lagu baaqo nabad meel kastaba ha lagu baaqo nabad nin walba nabadu dan bay u tahay kii dagaal doorta akhriya adduun buu waseegay. marka anigu waxaan u arkaa inay nabadu tahay muhiim maxay ahayd ilaahana fidmaynin baan leenahay akhrisadan baa lagu jira akhrisadan adduunka oo dhan baa gariiraya oo gelgishay adduunyada oo dhan baa khatar ku jirta. marka waxaan leeyahay ilaahana fidmaynin ilaahu khaatimada khayrna ku khatay. islaamku waa inuu isu soo dhawaadaa inay heshiiyaan dagaalada ka heshiiyaan oo ninka xaq ka maqan yahay xaqiisa loo ceshiyaa intii dhimatayna ilaahay u naxariisto baanu leenahay wanaagga ha laga taliyo. halkaa waxaan la hadlayaa reer gedo iyagana reer gedo oo diiday in la isku diro halka dagaal ka dhacaan oo xasan sheekh ciidamada halkaa u geenayay ciidanka kale isku dhaco sidii beri dhawad dhacday oo kale. waxaan leeyahay maxay ahayd dantiina garateen dantiina ayaa garateen maanta iyadoo awal la isku kindiri jiray oo idin dhex geli jiray adaa kuwii tirahdeen maanta horgalada ha naga taga dantiina garateen baan leeyahay. marka ummadda Soomaaliyeed dhammaan waxaan ugu baaqayaa maxay ahayd in laga heshiiyo